إن أن آد ومهد عليه قلبي إن سمعنا ولا لهن تركيا مدحوينه هذا رجل طيب أردوغان دولة تركيا dadweynaha shacabka reer Turkiya waa kuwa Soomaaliya garab istaago mar walba oo ay baahi qabaan baahiyadaas oo hal ahayn oo isku mid ahayn maalintii aan u baahnayn in maxaan ku raabiyo lagu qabto oo aan liidanay waana garab istaageen umanaan tan oo raashin ay dalkan keenay ma keenin kaliya ee waa noo garab istaageen kii aan karsa karin inay u kariyaan kii karsa karana inay siiyaan oo gurigiis ku karsado ay yahay maalintii ay magaaladan Muqdisho meel laga guuray oo qashinku uu dhooban yahay oo wadooyinka qashin uu xiray nimankii noo yimiday ee qashinka wadooyinka ka qaaday ayagay ahayd nagu dhiirigeliyay rajada noo abuuray inaan qashinka iska qaadi karno oo aan muxuu ay soo qalabkii iyo agabkii loo baahnayna nala soo garab istaagay maalintii aan difaac u baahnayn oo cadow dhib badan oo nagu habsadayna inaan iska qaadna aan u istaagnayna wayna garab istaageen waxay nagu garab istaageen aqoon waa tamaanta aan u taaganahay waxay nagu garab istaageen qalab waa midka aan wadano oo aan furimaha la joogno maalin dhaweedna aan soo bandhigayno koodii luuli qayb ka mid ah waxay nagu garab istaageen meedaanka ama goobta dagaalka in ay maxaan ku raadnaa nagala qayb qaataan sidaas daraadeed waa walaalo naga mudan mahad celin iyo sharaf iyo karaamo aan u hayno maalin maalmaha ka midana ilaahay idankiis ummadda Soomaaliyeed way u abaalgudi doontaa dalka Turkiya wax siismadu waa la wada helaa waxna waa la isiisiyaa dad badan ayaana waxna siiyo cid kasta oo Soomaaliya garab istaagtay mustaway doonta iyo levelkooda doonta ku garab istaagtay way maadsan tahay laakiin midda Turkiya halaa la jirta sharaf iyo karaamo iyo qadarin iyo waxa la jirta maxaan ku yiraahdaa dhowris yaa la jirta dana gaara iyo xarka gadaal uga xiran oo lagu jiijiidayo ama diblomaasiyadeena iyo dawladnimadeena lagu dhantaalayo ama lagu hagayo midna kuma xirna kaalmo badan xarka badan gadaal uga xiran oo mar walba dhinac loo jiido tani xarka kuma xirna annaguna abaalgudka ugu fiican oo maanta aan sii karna waxay tahay wixii ayna bareen oo aan siday noo bareen u isticmaalno wixii qalab ah iyo agab ah oo ayna siiyeen oo sida ugu fiican aan u isticmaalno iyo markaan dalkooda tagno inaan discipline iyo nidaam aan la joogno oo aan shuruucda dalkaas aan ilaalino oo aan dhaqankooda iyo taqaaliidooda aan aad iyo aad u dhowrno oo aan u aragno dad sharaf iyo karaamo mudan inay yihiin inta aan la joogno dalkooda joogno oo aan waxbarashada iyo maxaan carabiska aan u tageyn hadii aan leeyahay aan rajaynayaa intaas oo dhan inaad ka mira dhalisaan mar kale walaalihiin saraakiil xigeen leh ciidan leh ayaa frontiga jooga sugayo oo maanta markay khabaarkan maqlaan aad iyo aad ugu farxayo waxbarashadu weli inay sii socoto ilaa waxbarasho ma dhamaatay yaa la ii sheegay laakiin dadaala kuwa waxbarashada ku habsaamo oo waqtigii loogu talagalay ay la dhaafto oo ku daaha ha noqonina ilaa waalidi sugaya dadka Soomaaliyeed guud ahaan waa idin sugaya walaalihiin saaxiibadiin ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee frontiga jirana way idin sugayaan